muwaadinkan Soomaaliyeed ayaa waxaa meedkiisa laga helay xilli habeenkii ay ahayd garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku yaala xaafadda Clairefontaine ee magaalada Cape Town waddanka Koonfur Afrika waxaana lagu wareejiyay Soomaali halka ganacsiyo kala duwan ku lahayd booliiska magaalada oo 12kii habeenimo helay meedka wiilkani ayaa halka ka qaaday waxayna ku raadiyeen Soomaali deegaanka la deganayd ilaa laga helay wiilal ay saaxiib u ahaayeen oo muddooyinkii u dambeysay uu la noolaa marxuumkan oo lagu magacaabay أحمد محمد إسلام مركانا كوعان أها أحمد دي وحاو دوان يميد مقالة كابتون إساقو جوغي مدو لباتن مالمودا waxaana uu la noolaa dhalinyaro ay saaxiib ahaayeen tan intuu joogay magaalada Cape Town shalay ayaa waxa uu soo aaday xaafadda Belfile Soomaalidu ku badan tahay waxaana kadib xigay meedkiisa oo la geeyay goobtii ganacsi uu shalay ka soo ambaxay sida uu saxaafadda u sheegay mid ka mid ah saaxiibadii shalay 7 saac اوكي غورما لدين شيء إن دلمر على 4 ساعات أو شيء هاي مركب يا إيدين كنا مركب إن الدليل هذا صار شيء إن مش هو يالميتس هاي واقرت ويل كان مش شقينا أي مسؤولها سفرة ويل مرتي وأنا يلا المسا يوجو قدل كمر المسا يوجو قدل كم هذه 3 بلاد وجوه لما وقعت رسميا كدنبيسay dilka wiilkani oo loo adeegsaday toorey cunaha looga jaray sida ka muuqata jirkiisa balse booliiska magaalada Cape Town oo helay meedka wiilkan Soomaaliga ayaa sheegay inay soo qaban doonaan cidii ka dambeysay falkan arxan darrada ah marxuumkani ayaa lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee magaalada Cape Town iyadoo aaska marxuumkan ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan kuwa ka kala yimid daafaha magaalada Cape Town isla markaana wajadooda laga dheehan karay murugo aad u weyn أحمد محمد ومواطنكii u horeeyay Soomaaliyeed ee lagu dilo magaalada Cape Town ee gobolka Western Cape tan iyo markii coratay bisha barakeysan ee Ramadaan Cabdillaahi Qorshe Royal TV Cape Town Koonfur Afrika